السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانين سلامي دمانتي مداوذي الكسر دوادا channel كان قلقلع استوديو ومعلمة معاه لحي توانكي بيشي كويتوناد لبدا كوني سديد وحيابها تكون مغلي دونتان وراركي انما انت واحا كميدا الشباب ولا قفر ملوشي ديغان اي معموليين قاري اي كبوحان قرحيو لو قفت مid كميدا ديغانada gobolka galgaduud General Inda Cadde oo difaacay dawladda Soomaaliya intaas waa warka madaxdii haatanna ku soo dhawaada warkii fidsan wararka naga soo gaaray gobolka galgaduud ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ay bilaabeen hawlgal ka dhan ah ururka al-shabaab deegaanada hawlgalka oo ka bilowday ayaa waxa kamid ah tuulooyin hoostaga degmada Guriceel ee gobolka galgaduud waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in al-shabaab ay kala wareegeen deegaano ay gacanta ku hayn jireen ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ayaa saacadihii la soo dhaafay la wareegay deegaan 8 kiiloomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Guriceel oo lagu magacaabo Goologoole kaas oo ay maamuli jireen ururka al-shabaab dadka deegaanka Goologoole oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in halkaasi ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug hase yeeshee ay weli dareemayaan xaalad dagaal saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in hawlgalku uu sii socon doono isla markaana ay qorsheynayaan in ay al-shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud wararka aanu ka helno degmada Cabudwaaq ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka maamulka galmudug ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa gaariga ayaa lagu qabtay kontaroolka laga soo galo magaalada Cabudwaaq waxaana hadda ku socda baaritaano kala duwan gaariga la qabtay ayaa la sheegayaa in ay jiraan shakhsiyaad la socday oo ay sidoo kale gacanta ku dhigeen ciidamada galmudug saraakiisha ciidanka ammaanka galmudug ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda ay faahfaahin ka bixiyaan gaariga kan iyo waxyaalaha uu siday General Yusuf Maxamed Siyaad Inda Cadde oo kamid ah saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa ka hadlay halka ay al-shabaab ka helaan hubka iyo dareeska ciidanka ee ay weerarada u adeegsadaan waxa uu beeniyay General Inda Cadde in dawladda ay siiso hubka iyo dareeska ururka al-shabaab wax macquul ah ma ahan in dawladda Soomaaliya dagaal kula jira ururka al-shabaab inay hubkeeda iyo dareeskeeda siiso ayuu Inda Cadde ku sheegay wareysi uu siiyay idaacadaha Muqdisho hase yeeshee Inda Cadde ayaa sheegay in al-shabaab ay hubka meelo kale ka helaan inkasta oo uusan sheegin meelaha ay hubka loo soo marsiiyo iyo dawladaha siiya weerar qaraxyo ah iyo dagaal toos ah oo ay ku qaadeen qaar ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab toddobaadkii la soo dhaafay hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu dilay raggii weerarka soo qaaday dhamaantood kuwaas oo gashnaa dareeska ciidamada qaranka